English vocabulary. English vocabulary. Af Somali erayo cusub. Excellence, heer sare ah. Honesty, daacad ah. Estimated, la qadariyo. Showing, muujinaya. Character, dabeecad. Rank, darajo. Dignity, sharafta. Worth, mudan. Wisdom, xigmad. Distinguish, kala saar. Famous, caan ah. Respect, ixtiraam. Achievement, guul. Gracious, fadli badan. Fadli badan. Court, court waa maxkamad. Court, maxkamad. Illigent, illigent. Illigent waa maxay? Xaraga leh, wax lagu xaragoodo ama xaraga leh. Illigent, xarago leh. Honorable, sharaf leh. Powerful, awood leh. Haddaan ku celino English vocabulary waxa weeye erayo cusub. English vocabulary. Vocabulary waa erayo cusub. Af Soomaali erayo cusub ayay la macnata. Excellence, ugu wanaagsan ama heer sare ah, waa wax fiican, ka fiican, ka wanaagsan ay noqonaysaa. Marka excellence waa midka ugu sarreeya wanaagga. Honesty, daacad ah, waa qof shaqadu hayo ama maamulka uu hayo ama dadkiisa ama xitaa naftiisa daacad u ah. Estimated, la qadariyo. Qofka madaxda ama dabeecadda wanaagsan ama dhaqankiisu bulshada ku dhex wanaagsan yahay waa qof aad loo qadariyo dhaqan ahaan, dabeecad ahaan iyo diin ahaanba. Marka estimated waxa weeye shaqsi aad loo qadariyo. Estimated, showing, muujinaya ama tusinaya. You are showing me your character. Ma waxaad i tusinaysaa dabeecadaada ama habdhaqankaaga. Showing, tusid ama muujin waaye. Character waa dabeecad. Dabeecadda qof kasta uu leeyahay. Shaqsi kasta dabeecadda uu leeyahay. Rank waa darajo, sida ciidanka, darajada ciidanka oo kale. Qof waxaad arkaysaa xidig, 2 xidig, 3 xidig, alifle iyo wixii ka koreeya. Waxaa kale noqon kartaa maskabka uu qof bulshada dhexdeeda ku leeyahay. Maskab ama qadarinta uu reer ummadda dhexdeeda ku leeyahay. Dignity, sharafta. Qof walba sharaf iyo uu jecel yahay. Sharaf waa wada garanaynaa. Worth waa mudnaan. Mudan, qof ayaa muxuu mudan yahay? Mudane hebel, xildhibaanadoo kale. Mudane waa mudane ama mudan. Wisdom, xigmad. Qof xigmad badan oo caqli badan oo garaadkiisu aad u sarreeyo. Distinguish, kala saar. Why are you distinguishing women from men? Nimanka iyo haweenka maxaa u kala soocaysaa? Kala soocid, kala saarid ama kala saar. Famous, caan ah. Berigii hore culimada iyo madaxda iyo dadka waxtarka u leh bulshada ayaa waxay ahaan jireen caan. Hadda laakiin caannimada waxaa laga raadiyaa waxyaabahan ku wanaagsanay sida social media oo kale. Caan ah, wax aad loo wada garanayo. Respect, ixtiraam. Respect waa ixtiraam. Waa ficil ka bilowda qof kalena gaadha kadibna labadooda ay isweydaarsadaan. Inaad adigu qofka ixtiraamto. Achievement waa waxaad bilowday guul la kuugu dhammaaday. Ficil baad bilowday guul kuugu dhammaaday. Waa guul. Gracious, gracious, fadli badan. The Quran is very gracious, most gracious and merciful. Macnaha fadli badan. Waxaan u malaynay kalaamka Ilaahay wax ka fadli badan inuusan jirin dhinaca islaamka kolkii laga fiiriyo. Marka gracious waxaan dhahaynaa fadli badan. Court waxaan dhahaynaa maxkamad. Court waa maxay? Maxkamad. Maxkamad ayaan dhahaynaa court.
illigent waxaan dhahaynaa xarago ama shay xaraga leh. honorable qof sharaf leh inta badan waxaa loo adeegsadaa xildhibaanada iyo madaxda, gaar ahaan xildhibaanada. powerful awood leh yaad is leedahay adiga shaqsiyan waa qof awood dhammaystiran leh. Allah subxaanahu wa tacaala keliya ayaa wuxuu leeyahay awood dhammaystiran. hal mar aan ku celino. excellence waxaan dhahaynaa heer sare ah. honesty daacad ah. esteemed la qadariyo, he is a very esteemed. ama kolkaad hadda su'aalo codsi qoranayso oo kale, you are esteemed officer qoranaysaa, macnaha xafiiskiina la qadariyo. esteemed qadarin ayay noqonaysaa. showing muujinaya ama tusinaya. character dabeecad. rank darajo. darajo waxaan ku tusaale usoo qaadanay darajada ciidanka la siiyo marka la dilacsiinayo, ama maskabka uu dadka dhexdiisa qofkaasi ku leeyahay, darajo noocee ama ixtiraam noocee ama qiimeyn noocee uu ku leeyahay. dignity waxaan dhahnay sharafta. sharaftayda ha ku ciyaarin, sharafta ruuxa hebel ha ku ciyaarin. qof afxumeynaya aragtay markaas waxaa tidhi ha ku ciyaarin sharaftiisa, wuu kaa fiican yahay. dignity sharafta. wisdom worthy leh mudan. wisdom xigmad. distinguish kala saar. famous caan ah, waa qof caana. saan sheegnay dadka hadda social media ku jira inta badan caannimo raadiya. respect ixtiraam. achievement guul. gracious fadli badan. court maxkamad. court waxaan dhahaynaa maxkamad. illigent waxaan dhahnay xarago ama xaraga leh, shay xaraga leh ama wax xaraga leh ama lagu xaragoon karo. honorable sharaf leh. powerful awood badan leh. taasaa ku daynaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.